أبي يمسك الرسوم له أنا قال لي واحد يسبح عبدي أنا تاس أصفر الواحد بكون بينه أصلا وهوانا 86 سنة جرا waxay ka mid tahay barakacayaasha ku nool kan barakacay oo ku yaala Jowhar oo lagu magacaabo Jiliyaale waxay ku nooshahay guri ka samaysan cooshado gelinkii dambe ee xalay nin xoog badan oo qori wata ayay ii sheegtay inuu gurigooda ugu dhacay dabadeedna si qasab ah jirkeedu ugu tagay su'aalo badan ma aanan weydiin karin maamadan maadaama aan aad uga xalal xumaaday markii aan dul imi balse waxay ii sheegtay sida ay wax u dhaceen qoriga oo xoog leh ama jiif ay xaabi u hidil oo kaadi oo ay xaabi dhamantiis ah maxaan galay aniga kuwan badan ii midaan waana min kaan dambe أبي يمسك الرسوم له أنا قال لي واحد يسبح عبدي أنا تاس أصفر الواحد بكون بينه أصلا وصل كورك إذا فلستي واحد يمر أنا راوح كل فلستي قاس أنجفه هذا هو يا يما قالها واحد يجري mid ka mid ah carruurta ay dhashay hooyadan oo iyana goobta ku sugnayd ayaa ii sharaxday sida uu yahay dareenkooda markii aan ku soo baxnay aan waayni meel aan u raacnaan waayni saan iska waaga sidaan ugu bari haasaa jirta hadaan aw dhib u yareen oo dhiigeeda iska socdo wax kale ma sheegna ma naqaan dib kale oo nolodiisa lahaay oo kale maadan ayayaan oo intaan sano oo jirto ninka dibkaas u deestay maxaa kale oo dhimo oo uu sameeyay Cabdishakuur Shaashaarteen Jowhar kale oo nolodiisa lahaay oo kale maadan ayayaan oo intaan sano oo jirto ninka dibkaas u deestay maxaa kale oo dhimo oo uu sameeyay